taxana oo taariikh ah taasoo kasoo bilaabanayso markii taariikhda ay bilaabatay ilaa iyo xilliga hadda aan joogno. marka taariikhdan sida og tahay laba u kala baxdaa. taariikhdii ka horeysay duufaanka waxaa loo yaqaanaa taariikhdii hore, marka wixii ka dambeeyay duufaankana waxaa loo yaqaanaa taariikhdii dambe. haddii oo taariikh ahaan wax loo xisaabinayana sanadka wuxuu noqonayaa sanad kor kasoo bilowdo oo hoos ku dhamaado, iyo sanad hoos kasoo bilowdo oo kor matqaan usii socdo. maxaa yeelay wixii ka horeeyay nabi ciise calayhi salaam waxaa loo yaqaanaa wax kor kasoo bilaabanayo hoos ku dhamaanayo. wixii nabi ciise calayhi salaamna dhalashadiis ka dambeeyayna waa mid hoos kasoo bilaabanayso kor usii socoto. taariikhda bani aadanka waa sidaas. taariikhda bani aadanka gormay bilaabatay. taariikhda bani aadanka waxay bilaabatay markuu bani aadanka oo bilaabay inuu wax qoro oo diiwaan geliyo taariikhdiisa mise dhacdooyinka markaas dhacayay. laakiin wixii ka horeeyay qoritaanka waxaa loo yaqaanaa taariikhihii hore wixii ka horeeyay. marka waa ila fahantaa u malaya. taariikhda marka waxay bilaabanaysaa nabi nuux calayhi salaam wixii ka dambeeyay, waayo wixii ka horeeyay waa la halagay. wixii nabi nuux ka dambeeyayna nabi nuux calayhi salaam waxaa soo raacay dad yaro oo aad u yar, kuwaasoo marka noqday dad asiga aaminsan. waxayna ka yaraayeen 20 qof. waayahay taariikhda bani aadanka. taariikhda bani aadanka waxay kasoo bilaabanaysaa nabi aadan calayhi salaam. nabi aadan wax lagu dhex abuuray janno, kadibna waxaa la keenay adduunka. nabi aadan calayhi salaam adduunkan u imaaday, se usii socday wuxuu dhalay duriyad, carruur yeeshay, way sii bateen, se usii socdeen. nabi aadan oo dhintay ilmihiisaa sii batay, se usii socdeen. marka qaar ilaah wuxuu ka dhigay nebiyo. waxaa ugu horreeyay jiis calayhi salaam ilaa nabi idriis, se usii socotay. ilmihii nabi aadan way sii bateen duriyadiisa, qaara waxay noqdeen inay sanam caabudaan, se u socotay. marka waxaa la gaaray xilligii nabi nuux calayhi salaam, taasoo marka dadkiisa la hadlayay in ka badan 900 sano. marka se u socotay way aamin waayeen. ilaa wuxuu kusoo diray duufaan, dadka dhan waa halagay. dadkii markaas jooga dhan waa halageen wax yar mooyaane. ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil. marka nabi nuux calayhi salaamna 4 carruur oo lahaa, 3 ka mid ah soo badbaaday, halna iyo hooyadiisna way israaceenoo dadkii qaaday waa kuwii kufriyey. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala nabi nuux waxaa ilaahay ugu awaalmariyey in uu asiga ka dhigo aabihii labaad ee basharka mise bani aadamka. marka ilaahi subxaanahu wa tacaala 3 carruur oo markaasi asila badbaaday sida oo saam iyo xaam iyo yaafith ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala ka dhigay duriyadiis kuwii had soo haray. intii asi mataqaan la aamintay wax duriyada u reeb maraha, laakiin ilaahi subxaanahu wa tacaala iimaankoodu aqbalay, wuxuuna ka dhigay ahlu janno, waana u naxariistay. saasay mataqaanaa ay ku guulaysteen. laakiin nabi nuux calayhi salaam asaa laga dhigay abul bashar oo labaad. waayahay halka haday dhigto si u socotay. marka nabi nuux hadda marka sheekadeen noo bilaabanaysa. nabi nuux calayhi salaam duriyadiisa carruurtiisa waxay kala ahaayeen saam iyo xaam iyo yaafith. saam ilmo badan oo dhalay, carruurtiisana waxaa ka mid ah mid lahay kancaan, xaamna kadalika. marka carruurtii oo saam iyo xaam iyo yaafith way bateen, adduunkay ku faafeen, adduunka dhan ayagaa degay. markaasna waxaa bilaabanayso in ilmihii oo saam iyo xaam iyo yaafith ay samaystaan boqortooyo, ay ka safaystaan daafaha dunida. waxay noqdeen qabaa'il, waxay noqdeen marka inay noqdaan is aruursadaan, ay samaystaan deegaamo, ay samaystaan marka qabaa'il. adduunkii waxay noqdeen dad ilbaxay oo samaysta xadaarada iyo boqortooyo iyo salaadiin ay u gooniya samaysteen. waayahay halka marka waxaa noogu bilaabayso bani aadamku inuu ilbaxay oo gaaray heer oo bilaab inuu wax qoro. halkaas marka waxaa bilaabayso taariikhda bani aadamka. xadaaradii ugu horeysay mise boqortooyadii ugu horeysay la dhisay waxaa la magaceeda Samariya mise Samuriyiinta. waxaa laga dhisay bilaadka hadda loo yaqaano al-Ciraaq, taasoo la dhisay taariikhda markay ahayd 4500 sano intoosan dhalan nabi ciise. kuwaasoo marka noqday dad adduunka kusoo kordhiyo ilbaxnimo iyo xadaarada cusub, oona noqday dadka ugu horeeyay oo kan adduunka qoraal. markaasay bilaabatay adduunka waxa la yiraahdo qoraal, oona la bilaabay in la qoro taariikhaha, oona la diiwaan geliyo. taas marka waxay ahayd xadaarada ugu horeysay oo bani'aadamka oo samaysto. sanadka markuu ahaa 4000 sano ka hor intoosan dhan nabi ciise waxaa jireen qabaa'il oo lahay kancaaniinta, waxay deganaayeen dhulka loo yaqaan Yemen. halkaas marka waxaa ka dhacday cimilo xumo, marka way soo qaxeen dhulka loo yaqaano Falastiin, oona ku taalo waqooyiga jasiiradda carabta. marka halkaas waxay boqortooyada kaliya adduunka ka jirto, waxay boqortooyada lahay mis xadaarada kaliya adduunka ka jirto, waxay xadaarada magaceeda lahay Samariya ku jirtay dalka Ciraaq. laakiin sanadka markuu ahaa 3200 sano ka hor intoosan dhalan nabi ciise waxaa dhulka loo yaqaan Masar soo baxay oo laga asaaso dalka Masar. kadalika hindi agteena waxa ku taal wadan lahay China. sanadka markuu ahaa 2800 intoosan dhalan nabi ciise ka hor waxa halkaas laga asaasay boqortooyo oo magaceeda lahay boqortooyada Chang. isla xilligaasi dhulka loo yaqaan Iran waxa ka dhisantay sanadka markuu ahaa 2800 sano ka hor intoosan dhalan nabi ciise waxa halkaas ka dhalantay boqortooyada ugu horeysay samaysto Iran magaceeda lahay Alam mise Elam. dalka qaaradda Yurub xadaarada ugu horeysay halkaas laga aasaaso waxay ahayd xadaarada lahay magaceeda Crete. waxa laga aasay meel hadda loo yaqaan Greek, waxayna
asaasantay intaysan dhalan oo soo bixin xadaaradda lahay Greek oo weyneed idinku dhan aad taqaaniin tan marka waa xadaarad oo halkaas la asaasay laakiin Greega ma اعترافsana mana kamid aha xadaaradoodii magacoodana waxa la hayay Nineveh sanadkana waa 3000 intoosan dhalan Nabi Ciise alayhi salaam kadalika hatta hadaan si ruuxna si aan qaarada hadda loo yaqaano Latin America mise America waxa jirto xadaarad markaas meeshaas laga aasaaso magaceeda la hayay xadaaradda Maya mise xadaaradii Maya oo la asaasay sanadka markuu ahaa 2000 sano ka hor intoosan dhalan Nabi Ciise sanadka markuu ahaa 2360kii xal burburshay boqortooyada ka jirtay dalka Ciraaq oo la magaceeda Saamiriinta waxaana soo baxay boqortooy cusub magaceeda la hayay Al-Akaadiinta waxa qabsaday boqor cusub oo qabsaday oo magaciisa la hayay Sarjuunkii oo Akaadiga ahaa oo anagana u naqaano islaamkeena magaciisa la hayo Namruud si u socotay sanadka markuu ahaa 2100 waxa dhashay Nabi Ibraahim alayhi salaam qaarna waxay ku leeyihiin wuxuu dhashay 1900 intoosan dhalan Nabi Ciise ka hor siday u badan tahay la sheegayo inay sheegayaan dadka muwarriqiinta masku takhassus taariikhda waxay sheegayaan inuu Ibraahim alayhi salaam u badan tahay inuu dhashay sanadka markuu ahaa 1900 intoosan dhalan Nabi Ciise alayhi salaam markii u socotay inta u dhaxaysay 1800 ilaa 1600 waxay ahayd dhacdadii ku dhacaysay Nabiyullah Yuusuf alayhi salaam iyo familkiisa marka sanadka markuu ahaa 1640kii Masar waxa laga aasay boqortooy cusub magaceeda la Hyksos taasoo ahayd qabaa'il oo kamid ah Kancaaniyiinta iyo qaar kale oo mataqaana kamid ah Creedka iyo qaar kale oo mataqaana iskaga imaada meel kale Afrikaan ah oo midoobo sameystay boqortooyo oo laga sameystay Masar qayb kamid ah sanadka markuu ahaa 1550kii intoosan dhalan Nabi Ciise ka hor waxa soo baxay boqor cusub dalka Masar magaciisa waxa la lahay Ahmus kaasoo burburiyay boqortooyadii oo Masar geeskeeda kala haysto magaceeda la Hyksos wuxuuna mideeyay oo asaasay dhaxal cusub oo boqortooyadii la hayay Faraaciinta kadalika sanadka markuu ahaa 1792 waxay noqotay ugu horeysay bani aadan oo samaysto dastuur dhameystiran oo kaamil ah taasoo loo yaqaano shariicadii Hammurabi wuxuuna ahaa boqor kamid ah boqortooyadii oo dalka Ciraaq sanadkan markuu ahaa 1600 intoosan dhalan Nabi Ciise ka hor boqortooyadii oo ku taal dalka Greek oo magaceeda la hayay Minowiya waa la burburiyay waxaana burburisay boqortooyo kale oo la hayay Duri xilligaas taariikhda waxay u taqaanaa xilligii mugdiga ahaa ee taariikhda Greega mise casrigii mugdiga ee taariikhdii Greega waayo wadankooda wuxuu noqday wadan oo bila xadaarada bila taariikh bila boqortooyo bila maamul ah ilaa iyo 200 sano sanadkan markuu ahaa 1600 intoosan dhalan Nabi Ciise ka hor waxa soo baxay boqortooy cusub oo ka dhalatay dalka China kadalika boqortooy cusub oo ka dhalatay dalka Suuriya iyo kadalika boqortooy cusub oo ka dhalatay dalka hadda loo yaqaan Turkiga magaceeda la hayay Hiti mise Hethis